waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga jin bay ka ahaatay. sheekadani waxaa qoray Fawzi Cabdi waxaana tarjumay saaxiibkay Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. waan ka cudur daaranayaa isbedelka dhanka codka ah. waad mahadsan tahay. kusoo dhawow qaybta xigta ee macluumaadkan annagoo qaybtii hore inoo joogtay wadahadaladii adkaa ee dhex maray amiiradda iyo sidoo kale dhibaatooyinkii kala duwanaa ay la kulmeen xasan iyo Shiriin maadaama mar walba ay ahaayeen kuwa dib ugu soo laabanaya marka qaanuunka magaalada ay jibiyaan kuwa lagu dhex arko beerta amiiradda. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa amiiradda markii ayna siisay digniintii la xiriirta qoraxda iyo dahabka markii ay isku milmaan dhibaatada ka dhalan karaysa waa ay naga tagtay. anigana waxaan fiiriyay dhanka iyo Shiriin oo weli wareer uu ka muuqdo maadaama aysan u adkeysan karin ilayska qoraxda indhaheeda. waxaana aan ku iri waxay ila tahay inaan soo gaarnay dhamaadkii waana inaan xaqiiqda aan wajahnaa taasi oo ah in meelna aanan gaari karaynin waayo waddo kasta waxay dib inoogu soo celinaysaa halkii aan wax ka bilownay. intaan wax ka badanna in aan niyadda aan isku sii dhisna ma ahan waayo tijaabadii ugu dambeysay ee raadkeeda ayaaba weli noo digaya. annaga marka hore ayaan soo dhexgalnay ciyaartan halista badan adigana raalli baad ka ahayd inaad idaba socoto cidina kumaga aysan qasbin sidoo kalena qorshaha wuxuu ahaa in arrimahana soo wajaha inaad adiga aad ii daysid aniga si aan xal aan ugu helo. haatan faraha iga qaad aan hawsheeda qabsada ee arrintanna habkayga ayaan u xallinayaa. okay waxa doonta samee balse ogow in aadan noo wadin meel aan jaxiimo ahayn. halkii ayaan ka baxnay oo socodkii aan ka bilownay waxaana sidii hore markasta ay noo ahayd kuwa ku dhaca dhibaatada ay ka cararayaan markastaana waxaan soo kacaynaa annagoo beertii amiiradda dhex jiifna. ayadana waxa ay noo sheegaysa qaacidadii aan jibinay mar walba oo ahayd mid nagu cusub waxaana sidaas aan ahayn muddo 3 toddobaad ah ilaa markii dambe aan ka daalnay. waxaan go'aansanay inaan meeshaan uga harno sheekada waayo ma sii wadi karayno mana aanan ku dhex jiri karin labadan gabdhood ee jinka ah oo kibir dartii sidaasi u samaynaya. Shiriin waxay ahayd mid uusan marnaba daal uusan ka muuqan balse aniga insaan ayaan ahaye bastii ayaan joogaa. waxaana u sheegay Shiriin inaan ciyaarta sii wadi karin labadoodana aanan u dhaxayn kareynin halkaasna ay iga eg tahay balse Shiriin oo isku dayaysa inay qanciso ayaa hadalkii qaadatay oo sheekadan ayaana dhex martay. xasan oo aniga waan kuu baahanahay si lamid ah sida aad adiga iigu baahan tahay haddii aad haatan aad iga hartidna ciqaabtaada way darnaan doontaa waa inaan isku dayga aanan joojin ilaa aan ka guulaysano. bes waaye aniga waa iga dhamaatay arrintan mana sii wadi karaya aniga marba haddii aan markasta aan dib ugu soo laabanaya beerta amiiradda maxaan isku daalinayaa intaan ka badanna kibirkaada uma sii dulqaadan karo. haddaba haddii ay sidaasi tahay marka xasano oo ay halkaasi kaa taagan tahay bal adiga tali maxaan samaynaa noo sheeg waxyaabo waalan. waxaan u tegaynaa amiiradda waana raaligelineynaa annaga oo ka codsanayna inay noo sharaxdo qawaaniinta magaaladeeda juhdigan badanna waan ka nasanaynaa. haddii ay sidaasi ay tahay hal jaanis isii isku daygii ugu dambeeyay ayaan samaynayaa haddii aan ku fashilano waxaad doontid adiga samee markaas. inkastoo aniga aan ogaa in isku daygaasi aan ku fashilmi doono haddana waxaan u ogolaaday ama aan ka ogolaaday si aanan marmarsiyo kale aan u siin. hase yeeshee mar kale ayaan hal jaanis oo kale iga codsatay haddana mar kale ayay sii codsatay iyadoo intaas oo dhan ku fashilmaysay balse markii dambe jaaniskiina waan ka diiday inaan mar saddexaad aan siiyo. waxaan qaatay go'aan aan ka noqosho aan lahayn aniga oo u jeesta dhankii iyo amiiradda. Shiriin ayaa markaasi isoo daba kacday iyada oo igu leh xasan u malaymaayo inaad bandaar u ogolaanayso inay aniga i cayso. bes waaye kibirkaada intaan ka badan ma sii wadi karaya aniga. go'aanka adiga ma lihid waxaan ku amro ayaadna samaynaysaa mana kugula talinayo in aad aniga caradayda iyo xanaaqayga aad kiciso. wax walbaa sameey ha ka yaabin inaan ka laabto go'aankaas. waad ogaan doontaa qofka go'aanka ugu dambeeya yeesha aniga ama adiga. go'aanka ugu dambeeya muxuu yahay haddiiba aan go'aansaday haatan maxaan dib aan uga laabanaya beertii amiiradda adna waxaad rabta samee. horey u socohee adigoo laga guulaystayna soo laabo. adna jaxiimo aadii waayihii. waxaan dib aan ugu soo laabtay beertii balse Shiriin waxay guda gashay in ay isoo raacdo iyada oo ii hanjabaysa marna ay caynaysa mar kale ayay igu qaylinaysaa balse aniga waan iska dhigatay dhammaantood waxa ay ku hadlaysaa iyada. markii beertii aan gaarnay waxay ahayd mid degan waxaana igu tiri ayadaa marnaba ogolaan doona in qof caaya sidoo kalena raali gelin dhiibto
markaan baan ka dalbaday inay raacdo waxaanaan u sheegay inaan aniga raaligelinta aan dhiibaya aniga oo magacayga ku hadlaya. Shib ayay iga tiri waxaana galnay beertii annaga oo dalbanay amiiradii. Wax yar kadibna way noo timid iyada oo leh soo dhawaada, waan ku faraxsanahay inaad soo laabateen. Annaga waxaan ka cudur daaranaynaa inaan jebinay qawaaniinta magaalada. Waxaan rajaynaynaa inaad aqbashid raaligelinteena, isla markaana aad noo sharaxdid qawaaniinta nalaga doonayo inaan ogaano. waan aqbalay raaligelintaada, balse waxaan doonayaa inaan maqlo haddii gabadha kula socoto ay kugu raacsan tahay raaligelintan. Shihriin oo jawaab laga sugayay markaasi waxay ahayd mid timaheeda iyo cijiyaheeda ku mashquulsaneed iyadoo iska indhatiraysa hadalka amiiradda. Markaas ayaa amiiradii hadalkii ay mar kale ay ku soo celisay Shihriinna waxay ahayd ruux iska sii dhiga tira. Markaas ayaan habdhaqankeedii aan aad uga caroodo waana ku qeyliyay si xitaa ugu yaraan amiiradda ay ugu soo jeesato. Balse Shihriin inta ay qosashay ayay hadalkii qaadatay oo waxay tiri, maxaa kugu dhacay xabiibi? Miyaadan ii jeedin inaan ku mashquulsanahay toosinta timahayga? amiiradda waxay ku weydiinaysaa ka jawaab haddii aad raalli ka tahay raaligelintan aad igu waafaqsan tahay. Maxaa kugu dhacay Xasan oo ma ilowday inaan aniga aan ahay Shihriin oo mustaxiil iyo waxaana dhici kareyn ay tahay inaan qof aan raaligeliyo qofku doonaba ha ahaadee. Hadalkii markii Shihriin ay tiri waxaad moodaa in amiiradii uga dhignaa dharbaaxa wejiga looga dhiftay, waxaana markii ugu horreysay aan arkay iyadoo caraysan kana xanaaqsan habdhaqanka Shihriin. Markaas ayaa amiiradii hadalkii qaadatay oo waxay tiri, kontaniisa macaanto waad guuldareysatay, waxba ha isweyneynin. Waaw, magacayga waad bataqaanaaye, ma inaan la yaababa midaas oo shoog ay igu noqotaa tolow. Bal adigoo raalli ah, Shihriin iigu yeer, magacayga waa Shihriin, mase inaan kuu hingaadiya ayaad rabtaa? Jawaabta Shihriin ay bixisay waxay mar kale ay ka caraysiisay amiiradii, waxaana meesha ah iiga muuqatay digniin culus iyo in dagaal lagu hoobto uu ka qarxi doono. Wax talana faraha kuma aanan haynin oo aanan ka ahayn inaan isku diyaariyo in aan dhunto haddii la isku soo boodo si aanan la ii dardarin. amiiradda oo ciil dartiis ilkaheeda qaniinaysa ayaa hadalkii qaadatay oo waxay tiri, kibirkaada iyo caqligaada waxba kuma tarayaan markan. Waadna u jeedaa adigoo guuldareystay inaad ii soo laabatay. Ii dhaqso, i raaligeli, waa intaasoo aan ku cafiyaaye. markaan Shihriin waxayba shaqo ay gelisay dhammaan xubnaha jirkeeda si ay amiiradda ugu jeesjeesto. Hadalkii ayay qaadatay markaasoo waxay tiri, marka aan guuldareysto kama xishooda inaan qirto guuldarrada, balse waxaa sharad ah in kan iga guulaysto uu iga fiican yahay aniga. Adiga weligaa sharaftaasi ma heli doontid si aad ugu faanto. Shihriin ayaan ka guulaystay. Xusuusnow, dadka dhanna xusuusi in Shihriin iyo qofkii ka guulaysan lahaa aysanba weligood kulmin. Aan hadalka kuu caddeeyo, aniga waanba ku caajisay jiliinkaada iyo siyaalyeelkaada ee xaqiiqada bannaanka keen, adigoo aan isqarinna soo dhawow oo indhahayga ka daalaco guuldarradaada. amiiradii baa markaasi Shihriin u dhawaatay waxaana ay fiirisay indhaheeda, waxaana la galay jawi aamusnaan oo dhowr daqiiqo ah iyadoo mid kasta ay fiirinaysa indhaha ruuxa kale si ay yasmo ay ku jirto. Markaas ayay amiiradii oo aad moodo guuldarradeeda inay ka akhrisatay indhihii Shihriin waxay tiri, xaqii hooyada hooyooyinka Zaata, sidan miyaad ku samaysay kontaniisay? Insaanka ayaan adeegsaday una ogolaaday in uu goobta ogaado, sidoo kalena uu isaga jidka u helo. adiga caqli badan ayaa kugu jira kontaniisa. haddii aad fallaaga aad noqon lahayna maalin waxaad ku guulaysan lahayd goobta gabdhaha wax ilaaliya midda ugu fiican. waa khasaaro inaad adiga dhinac jirtid anigana dhinac kale aan jiro. haddii aysan sidaasi ahaan lahayn saacan waxaan noqon lahayn saaxiibada kuwa ugu fiican. waxaan u sheegi doonaa dadka oo dhan inaad iga guulaysatay, sidoo kalena aadan kaligay aadan iga guulaysane jiil dhan ayaad ka guulaysatay. waxaa kaloo aan u sheegi doonaa inaad adiga aad tahay qofkii ugu khatarsanaa ee isku waqti aan noqonay. waxaad awooday inaad iqiyaanto ilaa waqtigii ugu dambeeyay. fiicnaan lahayda haddii aan awoodo inaan hab aan ku siiyo, balse dhib ma lahan, weligii intaan noolahay kuma ilaabi doono. Anigana marnaba ma iloobi doono inaan la kulmay gabdhaha wax ilaaliya midkood jiilka koowaadna ah. Sharafna ayay ii tahay la kulankaada, waana ku faani doonaa kulankan inta aan noolahay oo dhan. waxaan ka murugsanahay in kulankeena koowaad uu duruuftaani ku soo aaday. haatan adiga oo raalli ah ma ii sheegi kartaa haddii aan la kulmayo jiilka koowaad ee gabdhaha wax ilaaliya intaan jidka ku sii jiro ama aan boqortooyada sharta ku suganahay? kontaniisa xabiibi, ma jiro qof doonaya in uu gaaro adduunkaasi aadka u yar, waayo waa goob la isku ugaarsado. qofkii galana uusan weligiisa dib uga soo bixin. annagana waxaan kala xiriirnaa iyaga derbiga gadaashiisa. runtii meesha xabsi daa'in waxba ma dhaanto.
adigana si iskaada ayaad ugu socotaa mana u malaynaya in qof kugu soo dhaweyn doono gaar ahaanna dadka meesha ku jira sheekadaada way ogaan doonaan ka hor inta aadan gaarin boqortooyada sharta ee aad raadinaysana waxaan wahmi weyn aanan ahayn ma ahan mana jira wax qawaaniina oo ka hirgishay weligaa meeshaasi kama soo bixi doontid caajis ayaadna uga dhiman doontaa waxaana kuu ogolaan doonaa si arrinkaasi aad u ogaatid adiga weligaa maalin ma tagtay halkaas waxaan uga baahanahay meeshaasi ma jirto weligeena inaan xuduudeeda ka gudbo xitaa kuma aanan fikirin waayo qof galay oo ka soo baxay ma lahan annagana xuduudeenna waxay ku eg tahay derbiye cayiman kuma fikiri miyaa maalin in culuumtii zaataa iyo kaataa halkaasi ay ku dugan tahay ruuxdii zaataa iyo afkaarteeda waynala degan tahay umana baahnin inaan culuumteeda aan raadino haddii aan helnana xitaa zamankan la joogo wax qiimo ah ma yeelanayso waa macquul laakiin haatan ma jirta wax tala ah oo aad aniga isiinayso marnaba kuguma talinaya inaad dib aad u laabatid waayo masiirkaaga wuxuu noqonayaa haddii aad laabato xabsigii qubata nuur balse maadaama ilaa haatan aad ku soo guulaysatay in aad ka tallaabto dhammaan caqabadihii ka hor yaallay isla markaana aad dhex geli doontid boqortooyada sharta waxaan kugula talinayaa inaad ka faa'iidaysato fursadaada kuna raali noqotid waaqicigaaga cusub waxaad toos aad u aadaa magaalada dayaxa halkaas hana u dhowaanin magaalooyinka kale gaar ahaana magaalada qoraxda waayo haddii aad gasho oo ay amiiradeeda gacanta ay kugu dhigto waxaad la kulmi doontaa ihaano iyo yasmo anigana marnaba ima farxad gelinayso in la ihaaneeyo mid ka mid a gabdhaha albaabada sharta ilaaliya markii labadoodii sidaasi ay isku fahmeen oo ay wada sheekaysteen anigoo xasanna sidiina oo kale waxaan ahaa mid ku wareersan xaaladda taagan sidee ayay ku dhacday gabdhihii sida kibirka iyo yasmada ka buuxday isku yasaaya in haatan sidaani oo dhan isku ixtiraamaan isqadarin iyo isqiimayn ay dhex marto ma aanan fahmin aniga xitaa midaasi markii labadoodii gabdhood ay isagootiyeen isla macsalaameeyeen ayay Shiiriin ay soo baxday anna waan soo daba kacay balse intaanba waxaan weydiiyay su'aalo aad u tiro badan waan ogahay in aad liis kumanaan su'aalo ah mar hore aad sii diiwaan gashatay xasanow oo aad doonayso inaad i weydiiso waxaa kaloo aan ogahay inaad adiga marnaba aadan fahmaynin si kastoo aan kugu sharaxo xabiibi xasan fadlan su'aalahaada aan dhammaanaynin iigu naxariiso bal tartiib kuma weydiinayo wax badan balse hal su'aal ayaan ku weydiinayaa hal su'aal bis ayaan ku weydiinayaa mid kalena ma jirto kaliya ii sheeg maxaa meesha ka dhacay Shiiriin ayaa markaasi hadalkii qaadatay ka hor inta aysan hadlina qosol yar ayay jag ka siisay waxaana ay tiri horta nasiib ayaan leeyahay maadaama aad hal su'aal bis aad i weydiisay balka waran haddii aad laba su'aalood i weydiin lahayd taasi waxay la micno tahay inaan ku qasbanaan lahaa inaan kaaga sheekeeyo kuna sharaxo qisada basharka ah iyo labada koon min bilow ilaa dhammaad haatan sidii sanamka oo kale ha u tagnaanine ee nabad jidka ayaan kuugu sheekayn doonaa balse hal codsi ayaan wataa kaasi wuxuu yahay inta aan kuu waramayo ha igu kala jarin oo su'aal kale ha i weydiinin tartiib ii dhageyso okay Shiiriin waa ogolahay midaasi Shiiriin ayaa in cabaara aamustay ka hor inta aysan u sheekaynin xasan hadalkii ayay sa qaadatay waxa dhacay ayaan kuu sheegayaa annaga markii aan magaaladan soo galnay markii hore waxaan moodnay inaan boqortooyadii sharta aan soo galnay bandaarna ay amiirada boqortooyada ay tahay dhismayaasha iyo qaab dhismeedka magaalada ee aan aragnimo aysan ahayn kuwa xaqiiqo ah balse waxay ahaayeen humaaga boqortooyada sharta marka laga reebo beerta amiirada iyo wadooyinka kale wax walba oo cajiib ah oo aan magaaladan ku aragnayna waxay ahaayeen qiyaali naloo muujiyay iyo humaaga boqortooyada sharta bandaar amiirad ma ahan meeshaan aan joognana qof aanan ayada ahayn ma joogo waa kaligeed oo koox caawiyaal ah oo iyada la shaqeeya si ay noogu muujiyaan inaan joogno boqortooyadii sharta ayaa halkaani jooga annagana oon u malayno inaan boqortooyadii sharta aan soo galnay qorshahaasi si fiican ayay ugu guulaysteen waxaanay ku sigteen in ayna qiyaameeyaan arrintaasi waxay ahayd mid mustaxiil ah oo aanan dhici karin in qof uu ogaado in uu khiyaanadaani uu fahmo waxaan aniga xitaa aan u maleeyay in boqortooyadii sharta aan joogno balse markii aan beertii amiirada bandaar aan imaanay isla markaana ayna soo dhaweysay waxaan durba dareemay in aan hor taagannahay qof caqli badan oo caadi ah sidoo kalena da ah khibrad ahaanna iga weyn markaas baana isla markiiba yaqiinsaday aniga si kasta oo aan u adeegsada caqligayga si fudud ayaan u fahmayaa fursadda aan haysto taas oo ah inay tahay mid yar waayo haddii nagala guulaysto oo iyada dagaalka maskaxeed ay ku guulaysataa maadaama goobta aan joogno ee iiga aqoon badnayd sidoo kale waxay fahmi karaysaa qaab fikirkayga iyo xitaa tijaabooyinkii aan soo maray balse maxaan iyada ka aqaanay aniga waxba
ma garanaya qofka ay tahay, ma garanaya qaabkay u fikirto, mana garanaya halka aan joogno. Sidaasi oo ay tahay dagaalka aan la galo iyada waxaan hubay in 100% aan ku guuldareysanayo, weliba shaki la'aan. balse hal wada ayaa ii furneed, waxaana ay ahayd inaan adeegsado wax aysan marnaba iga filaynin. Waxa kaliya aysan iga filaynin waxa uu ahaa in Shireen ay u dhaqmi doonto qaab doqonnimo ah iyo canaad ah. Taasina bandaar arrin lama filaan ayay ku noqotay, waayo wax walba oo ay iga ogaatay ma aysan ahayn wax qiimo lahaa. Waxaana ugu wacan inaan doqonaan iska dhigay oo aan caqligayga oo dhan aan nadiifiyey. Markii ay aragtay in aan doqon iska dhigayo, ayay iyadana bilowday inay ciyaarta ila wado oo ay dhankeeda ayna doqon iska dhigto si ay ciyaarta ila sii wado. Balse ayada midaasi waa ay ku adkayd, waayo weligeed horey ulama aysan dhaqmin doqonnimo dad kale, balse aniga doqomo badan ayaan la soo dhaqmay, weliba midkood baan haatan la dhaqmayaa. Alxaasil waxaan bilaabay inaan u dhaqmo qaab bilaa qorshe ah, aniga oo maskaxdayda marnaba aanan adeegsan, xasuustana waxba aanan ku diiwaan gelin, sidoo kalena aanan marnaba waqtiga ka fikirin. Waxaan bilaabay in aan qaladaadkii aan ku soo celceliyo oo markasta qalad cusub aan ku dhaco. Waadna ogeyd inaan 12 jeer aan beerta bandaar aan ku soo laabanay. Tan ugu muhiimsan waxay ahayd inaan aniga xasuustayda aan ka dhigay mid faaruq ah, waayo waxaan ogaa in amiirada aysan ku adkaan doonin in ay akhriso afkaartayda. Markii ay aragtay maskaxdayda oo faaruq ah, sidoo kalena hal xasuus ah oo magaaladan aanan diiwaan gelin ay ku jirto, qaladaadka aan ku dhacayo iyo qaabka doqonnimada leh ee aan u dhaqmay ayay igu wareertay maskiinta, waayo waxay iga weysay wax qorshe ah, wax afkaar ah iyo wax ujeeddo ahba. Markaas bay bilowday in ay ka shakiso caqligayga, sidii inay wax ku dhaceen oo kale. Marnaba eed kuma lahan ayada midaas, waayo qaabkii aan ula dhaqmay xitaa doqomada uma dhaqmaynin. Qaladkeeda ugu weyn ee ay gashay wuxuu yahay in iyada ay ku mashquushay sidee u kala furfuri lahayd doqonnimadeeda, balse kuma aysan baraarugin in adiga xasuustaada ay wax walba duubayso oo ay shaqaynaysay oo aad caadi ahayd. Waayo insaanka maskaxdiisa waxay leedahay qayb xasuusta duubta. Anigana maadaama maskaxdayda si ku talagal ah faaruq aan uga dhigay si aysan u akhrinin amiirada, ayaa waqtigii ugu habboonaa afkaartaada aan dhex galay. Waxaana adeegsaday maskaxdaada, waxaana anoo maskaxdaada adeegsanayaan ogaaday dhammaan wixii aan xasuustayda ka masaxay, adigoo magaalada taaka u kala ogaaday. Sidoo kalena waxaan ogaaday xaqiiqda meeshan iyo sidaan uga bixi karnaba. Waqtigii ay iyada indhahayga ay fiirinaysay, aniga xasuustaada ayaan adeegsanayay. Kadibna waxaan toosaan ugu shubay maskaxdayda, waxayna ay aragtay inaan doqon aanan ahayn, sidoo kalena aan qiyaanay oo aan haatan ogahay, isla markaana aan aqaana sidii aan magaaladan uga bixi lahaa. Waxaa kaloo indhahayga ay ka akhrisay inaan ogahay in magaaladan aysan ahayn boqortooyadii sharta, iyada oo weliba qorshe walba oo aan degay sidaas ayaanu ku ogaaday. Intaasi waxaa u sii dheer inay ogaatay in aan ka mid ahaa gabdhaha ilaaliya albaabada sharta. Anigana sidoo kale maadaama aan markaani aan caqligayga adeegsaday, waxaan ogaaday inay iyadana ay tahay mid ka mid ah gabdhaha ilaaliya albaabada sharta, balse iima aysan ogolaanin wax intaasi ka badan inaan ka ogaado. Alxaasil muhiimaddu waan gaaray, waxay ahayd inaan dagaalka aan kaga guuleysto. Sidaa ayayna guuldarrada ku qiratay markii ay ogaatay in aan ka mid ahay gabdhaha albaabada sharta ilaaliya. Sidaas ayayna ila hadashay oo ii soo dhaweysay. Intaana waa inta kaliya ee aan kuu sheegi kara Xasanow. Waxaan rajaynayaa inaad wax walba fahamtay ee haatan ina mari aan humaagan ka baxno oo boqortooyada sharta aan galna ee. halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga Jini bay ka ahaatay. waxaa qoray Fawzi Cabdi, waxaana tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.